deegaanada Masle iyo Badhigales oo juqraafiyan dhaca koonfurta waqooyi degmada Ciilifin isla markaasna hoos yimaada degmadaasi Ciilifin ee gobolka Sanaag ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay taakuleen la'aan ka jirta deegaamadaasi oo kamid ah deegaamada ay abaaruhu saameeyeen dawladda iyo hay'adaha fuliyay mashaariicda bini'aadantinimada ayaa wax gurmada gaarsiin guud ahaanba deegaanadaasi dhanka kalena waxay deegaamadaasi cabasho ballaaran ka muujiyeen hay'adda taakulo oo mashaariico horumarineed ka fulin jirtay deegaamadaasi hay'adda taakulo ayaa caawimooyinka u fulisa hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa gabi ahaanba gacan bidaxaysay labadaasi tuulo sabab la xiriiro siyaasad awgeed waa sida ay hadalka u dhigeen dhanka kalena waxay eedeymo u soo jeediyeen hay'adda Amuud Foundation oo ka hawlgasha deegaamadaasi iyo gudaha degmada Ciilifin waxayna gabi ahaanba sheegeen inay musuqmaaqsadeen guud ahaanba degmada Masle iyo Badhigales dhanka kalena maamulka hay'adda taakulo ayaan weli ka falcelin eedeymahaas loo soo jeediyay waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay Chief Caaqil Maxamuud Nuux Maxamed oo kamid ah madax dhaqameedka degmada Ciilifin iyo qaybaha kala duwan ee dadka ku nool tuulooyinkaasi waxayna si wada jira u carabaabeen inay hay'adda taakulo gacan bidaxaysay mashaariicda horumarineed ee ka fulin jirtay deegaamada Badhigales iyo Masle maanta aanu joogno haddan aanu taaganahay waa tuulada Badhigales halkaana waxa inaga xigta iyana tuulada Masle deegaanadan waa deegaanada qayb kamida beesha aan mas'uulka u ahay ay taalo waxaan maanta halka kan munaasabada tan aan ugu qabanay cabasho nagaga jirta wax la yiraahdo cadaalad xumo shiida hoose waa laga yaabaa in marmar wax la keeno laakiin labada tuulada shishe iyada ilaa iyo hadda cid wax u keentay ma jirto marka laga reebo raashin 100 kiisha oo maalin afraad la keenay oo isaga laftigiisa badh la musuqmaaqay oo ilaa hadeer meel la mariyay aanan garanayn waxana mas'uul ka ah musuqmaaqaas oo anagu aan u haysanaa cid kastaaba iyagu hay iskaga reebeen waxay ahayd hay'adda la yiraahdo Amuud Foundation min 200 oo qoys bay lahaayeen afartii qaybood ee kale oo aanu u tirinayno inay dhinac yihiin raashimadoodii waa loo geeyay laakiin anaga kaayagii dhexda laga musuqmaaqay waxaanu leenahay waa daba soconnaa kana hadhi mayno waxaanu kaloo intaa ku daraynaa deegaanka aanu joogno deegaamada nagu xeeran waxa ka socda waxa la keenaa taakulooyin la yiri WFP ba soo bixisa urur NGO ah oo taakulo la yiraahdaana wuu qaybiya taakulo waxaanu ka tirsanaynaa cadaalad xumo badan oo ay ku kacday oo siyaasadaysan oo dagaalkii ka dhacay halka kan xabadii ay siyaasad u bedeshay maanta iyo maalintii mucaawanooyinka la bilaabay labada tuulo ee isxiga tuuladana mar raashin 6 bilood loo keenay inta ka dambeysay iyo intii ka horeysay mid walba labada tuulo waa go'an yihiin dadna waa ka qoraayeen oo waa laga qoray waa la qaataa raashimadoodii taakulaha la weydiiyay iyada soo qaado ka mas'uulo dadka u qaybisa hay'ado iyo dawlad ay meel fara badan waxtar ka yimaadaan waxtarkaana cid mas'uuliyadeeda la soo saaro cidii mas'uuliyadda la soo saaray waxtarka deegaanadaas iyo dadka lagu horumarinayo lagu gurmanayo qolaaca ka yimi in badan wax la isku dayay in la saxo oo xaq sharci iyo xaq maxaan ku haday maamul bal la saxo wali waxba kama saxmin dadkii waa la arkay aragtana waa cabanayaan waxay ka cabanayaan waxyaabo loo soo dhibay hay'adu soo dhibeen ee tabarucaadka iyo taakulada ku yimi ee abaaraha lagu talagalay ee dadka tabaalaysan ee dhibaataysan lagu talagalay in lagu gurmado taakuladii hore ee WFP u horeysay dadku mooyaane wax dambe oo aanu ku qaadanay ma ay jirto iyada iyo tuulada kale ee Masle la yiraahdo mataanaha kuwa naxiye dhinac walba naga xiga xagga bariga xagga koonfurta xagga galbeedka meel aan lagu qaadanay ma jirto caamo noocay u tahayba mid bixiso WFP iyo kuwa kale hay'ada bixiyaan iyo kuwa dawladdu bixisaba midnaba kuwa wax ka qaata mihiin kulley cidii ugu horeysay hadashay baa dhamaysay wuxuuna waxay ku kooban yihiin cabaatinka muuqda ee la wada arko
waxaan leenahay markaa warde haddii dhul abaari ka jirto annana wayna haysaa hadday biyo iyo baadlaani ka jirto annana waan haysaa dadka ku nool biyaada tan la yidhaahdo masle iyo barigelis waa la godoomiyey hay-adda la yidhahdo taakula waxay noogu dambeysay 2019 bishii 10aad waxayna siiso baa noogu dambeysay nooguna horreysay kuwa nagu xeeranna way siisaadoo maalin walba way maraan annagu dee mas-uuliyadda waxaanu awoodda dusha u saaraynaa cumar jaafaarax shakhsi ahaanna anigoo gaarnay anaa wuxuuba igu yidhi WFP anaan iyo taakulada anaa ka mas-uula halkan doonaa baan geenaya 200 oo qoys bay lahayd 100 baa loo rogay weliba fadhataysan oo ay daqiiqdii ka maqan tahay oo caanii ka maqan yihiin oo saliidda qaar ka maqan yihiin baa loo rogay oo hafara laakiin goobaha kale dee raashin dhammaystiran oo caanihii ilo daqiiqdii ilo sonkortii ilo bariiskii baa loo rogay oo saliiddii oo labaa leh halkan aanu taaganahay waxa weeyaan waa barigelis tuulada barigelis ayaanu taaganahay waxaanu u taaganahay waxweeyaan cabasho aanu mas-uuliyiinta somalilan ka shaqaysa ama hay-ad ha noqoto ama mid dowladda u shaqeeya ha noqotee ayaanu ka cabanaynaa waxaanu ka cabanaynaa adduunyada intaa nagu waageeran meel walba hay-ad baa wax geynaysa saacad walba waana dhaafaysaa deegaanka iyagaa anagu aanu fadhina masle iyo barigelis ugu sarreeyaan wixii ka hooseeya marmarna waxbaa lagu tuuraa marmarna waa nala mid laakiin labadaa deegaan waa laba deegaan oo 7 deegaana ku xeeranna waxooda qaataan labadaana la iska dhaafaa habashaas waxaanu ka hadlaynaa hay-adda WWF ee bixisa taakulada bixisa taageerooyinka kuwa hoos yimaada weeyaan kuwa muhiimadda ah wax qaloocinaya waxaanu halkan u nimi barigelis maanta ugu ururay yaan cabasho waxa weeye waxaanu hay-aduhu annaga waxba nama siiyaan 2019 baa noogu dambeysay wax nala siiyo oo 6 bilood nala siiyey intii ka dambeysay intii ka horreysay midna ma hayno hareeraha waa nala ka dhaafiya waddadaanu nala waa la mariyaa tuulooyinka kale waa la geeyaa waxaanu ku gasbanay oo nala ku qadiyey ma ogin bismillahi raxmaani raxiim waxa weeye waxaanu nahay annagu dadka abaarikaantayga ahayd ceelka bargelis leeyahaanu joognaa marka waxa weeye ceelka bargelis baanu degannahay dad maataa baanu nahay biyo waanu ka weynay raashino kuma qaadano ilaa iyo waqtiga raggaasu sheegaya aan ahayn marka waxa weeye biyo ma haysano baadna kuma haysano waxaanu iska nahay dadkii abaarikaantayga ahayd baanu nahay sidaasaanu ku joognay waxaanu leenahay raashinkaana dhaafdhaafaya waanu aragnaa baabuurta shiraaqana halkaa maraysa waryaalahay raashinkaana dhaafdhaafaya maxaanayla ku keeni waayey marka waxa weeye dee tuulooyin baa lahaa baa la yidhahaa ee idinku ma lihdi marka waxa weeye waxaanu leenahay hanala ogaado haddii ay sidaasu jirto hanala ogaado annagu waxaanu nahay dadkii barigelis deganaa iyo degaanka u dhow ee xooluhu ka waxaysmeen ilaa iyo abaartii hore iyo jiilaalkan adag ee haddeer na haystaba waxa weeye waxaanu doonaynaa wax taakula ah ilaahay baa taakula leh